مدن للمروين سلام كدب وحا شرف وين إنان هرتينا كقرو إنان أقبل مسؤولية دوين لا يقو آميني إنان هقاميو تلسك عيدن كحوق دالك صوماليات oo ah gaashaanka ilaaliya karaamada sharafta madaxbannaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogan sidoo kale waxa farxad ah inaan xilka kala wareego maanta taliyoodaha Yuusuf Raage oo aan la soo shaqeeyay labadii jeer uu hogaaminayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed anoo xilal kala duwan haya tani waxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah u tahay ama uga dhigan tahay fursad dahabi ah oo lagu tijaabinayo tayada iyo hanaanka maamul ee jiilka cusub ee saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo aan ku kalsoonahay wax qabadkooda shaqo haddaba mudanayaal iyo marwooyin waxa hubaal ah in mas'uuliyadda ay tahay mid culus kuna soo beeganta waqti adag una baahan dhamaanteen inaan iska kaashano difaaca qarannimada iyo madaxbannaanida dhuleed ee dalka kuna bixino naf iyo maal sidaan dalkan looga difaaci lahaa cid waliba oo qatar gelin karta amnigiisa horumarkiisa iyo siyaadadiisa saacadan aan joogno dhammaan gobolada dalka ciidamada Soomaaliyeed ayaa kula dagaalamaya cadawga argagixisada kuwaas oo fagaaraha dagaalka ka muujiyay geesinimo hal adayg waxaan rabaa halkan inaan uga diro salaan iyo duco wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee doortay naftooda inay u huraan si ay u difaacaan sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed mudan ra'iisul wasaare waxaan ka codsanayaa in ay ogolaatid waxa sidoo kale inaan halkan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu gudbiyo fariin ah inay yihiin geesiyaal dhab ah hal adag oo aan cashir aanan la ilaawi karin mar waliba u dhiga cadawga ummadda Soomaaliyeed ee dalkan diidan horumarkiisa waxaan idin leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo waxa tihiin gaashaanka ummadda Soomaaliyeed ee hortaagan cadawga wax magaratada ah ee aanan lahayn wax diin iyo dhaqan toona kuna dhisan afkaar qaldan waxaan hubaa inaad baabain doontaan dalkana aad idinka u hari doontaan mar dhowna aan insha Allah huwan doontaan taajka iyo sharafka cisdiga guusha insha Allah kadib la wareegida mas'uuliyaddan waxaan sii xoojin doonaa dadaaladii horumarineed waxaana markasto awood isugu geyn doonaa sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu noqon lahaa ciidan magac ahaan iyo awood ahaan ka dhex muuqda caalamka anigoo kaashan doono walaalahay saaxiibaday saraakiisha iyo askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inta aan xafiiskan aan maanta la wareegayo joogo waxaan ka shaqeyn doonaa sar u qaadista tayada dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee isugu jira maamul iyo howlgal intaba